salaamullaahi calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caawa iyo ciyaaraha maxaa ka cusub oo si gooni ah aan ugu faaqidi doonno labadii ciyaarood oo ay ciyaareen kooxaha manchester united iyo sidoo kaleeto manchester city laakiin ugu horayn haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskraib dhaho janaalkeenna adiga oo riixaya calaamadda gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hana naga iloobin in aad laag saarto muuqaalkan mahadsanid ugu horayn aynu ka hormarne maxaa ka cusub kooxda manchester united guushoodii labaad oo xiriir ah ayay soo hooyeen kulamada saaxiibtinimo ee ka soconaya cariga australia ka gadaal markii 4 gool iyo waxba ay ku dubteen kooxda Leeds oo si weyn ay u xifaltami jireen oo 5 daqiiqo kama soo wareegan in goolkii koobaad ay la timaado kooxda Manchester United ka gadaal markii Paul Pogba baas qurux badan uu farta ka saaray Aaron Wan-Bissaka oo maalmahan ku soo baxayna laacib kale oo cajaa'ib leh waxuu soo dhigay cross wacan oo wanaagsan waxaana shabakha ku dhammaystiray da'yarka lagu magacaabo Mason Greenwood oo halkaasi waxaa ka yimid goolkii koobaad ee kooxda Manchester United xidiga lala xiriirinayo inuu ka tagayo kooxda Manchester United ee Paul Pogba shakiga weynna uu ku jiro mustaqbalkiisa ayaa ahaa meel kasta ka muuqdaha ciyaarta oo weerar kasta oo ay samaynaysa United abaabulkeeda waxaa lahaa wiilka reer Faransa ee Paul Pogba goolka labaadna waxa uu ka yimid Marcus Rashford oo ina ka leexsaday laba difaac oo kooxda Leeds ah isla markaana darba qurux badan dhinaca ka dhigay gool hayo Casilla halkaasi waxaa ka yimid goolkii labaad ee kooxda Manchester United United turning defense into attack and Rashford showing this skill. Reer United war riyaaqsanayeen waxaana lagu kala tagay iyagoo 2 gool iyo waxba ku hogaaminaya ciyaarta markii la isku soo laabtay qaybtii labaad goolka saddexaadna waxaa dhaliyay Phil Jones oo madax la helay korna uu soo karoosay laacibka lagu magacaabo Pereira halkaasina John Stones wuxuu ka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay tan iyo bishii March 2014 waana 5 sanadood ka hor Great header by Jones. This is what plays the coaching staff. A goal from a set piece, direct header. You don't get too many of these in football, so great movement by Jones. Attacks it with some aggression and obviously the pace on the ball and the arriving speed of Jones's run. Just has to get a full contact. You see now, whips it in and he gets across his man, directs it down. Goolka afraad wuxuu ahaa rigore waxaana si wacan oo la jeclaysto gool ugu bedelay wiilka reer Faransa ee Antonio Martial. The Frenchman finds the corner. Manchester United in rampant pre-season back wins the penalty and Martial coolly, calmly. 4 gool iyo waxba ayay ku badisay kooxda Manchester United ayaana soo gabagabaynaysa haatan socdaalkooda Australia xilli 20 bisha July ay ku balansan yihiin dalka Singapore kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ayayna la ciyaari doonaan 5 maalmood kadib kulankaas magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ay kula ciyaari doonaan kooxda Tottenham oo dagaal culus u kala dhaxeeyo kooxda Manchester United dhinaca kale kooxda Manchester United oo u muuqata koox iska jiifta ayaa toddobaadkan gudihiisa waxaa la filayaa in saameyn mugle ay ku yeelan doonto xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda United ayaa la filayaa in ay ku guuleysan doonto laacibka lagu magacaabo Bruno Fernandes oo kooxdiisa ay ku qiimayso adduun lacageed gaaraya 90 milyan laakiin United ayaa dalabkeeda ugu horeeya waxay ka dhigi doontaa qiimo lacageed gaaraya 50 milyan sidoo kale Harry Maguire ayaa la filayaa in kooxda Manchester United ay la soo wareegto halka Maguire kooxdiisa si cad ugu sheegay in uu doonayo in uu ka tago guud ahaan kooxda Leicester City sidoo kale United ayaa go'aan cad ka qaadatay mustaqbalka Paul Pogba oo la micno ah in Pogba uu sii joogi doono kooxda Manchester United reer United weli halkoodii ayay ka sii wadaan maalmahoodii riyaaqa
kooxda Manchester City ayaa xasuuqday kooxda West Ham kulamada isku diyaarinta ee xilli ciyaareedka cusub ee tartanka Premier League Asia Trophy ee ka socda bariga dhexe. weliba kooxda Manchester City waaba looga naxsaday goolka koobaad oo rigoore ay heshay kooxda West Ham waxaa gool u bedelay Mark Noble. waa naxeen reer City waagu ayaana ku baryay, laakiin si degdeg ah ayay ugu jawaab celiyeen oo isla daqiiqadii 33aad ee ciyaarta waxaa barbardhac gool iyo gool ah ka dhigay qarowga reer Spanish ee David Silva. halkaasi loogama herin West Ham oo daqiiqadii 36aad waxaaba goolkii labaad u biisay da'yarka kooxda Manchester City ee Lucas Inmeka kaasi oo hoggaanka u dheereeyay kooxdiisii Manchester City. qaybtii hore waxaa lagu kala tagay iyadoo hoggaanka ay u hayso ciyaarta kooxda Manchester City. markii la isku soo laabtay qaybtii labaadna halkaasi waxaa ka bilowday bandhigii cajaa'ibta lahaa ee laacibka reer England Raheem Sterling. waa saddexeeyay oo min daqiiqadii 59aad ee ciyaarta waana u afarayay daqiiqadii 72aad ee ciyaarta oo Raheem Sterling waa ka yaabsaday dadkii joogay garoonka. afar gool iyo gool ayayna guusha ku raacday kooxda Manchester City kulankii isku diyaarinta horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. weli halkoodii ayayna ka sii wadaan bandhigoodii cajaa'ibta lahaa ee kubadda cagta. sidoo kale wakiilka ciyaartooyda ee Qirola muxuu ku qeexay imaanshihii kooxda Juventus ee Matthias de Ligt